ma awoodda Itoobiya inay samaysato kanaal laga soo jiida badda cas oo ay dekad ka samaysato gudaha xuduudkeeda. Tan iyo markii Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in Itoobiya u baahan tahay marin badeed ay ku nafisto si loo daboolo baahida dalka ee la soo degidda iyo dhoofinta badeecadaha kala duwan, waxaa soo taraya wadiiqooyinka kala duwan ee lagu rumayn karo riyadeeda ah inay hesho marun bad ay madax bannaan tahay. Wadiiqooyinka ilaa haatan miiska saarna waxaa ka mid ahaa inay ku hesho sifo sharci ah, mid diblomaasiyadeed, mid dhaqaale iyo mid isdhaafsi. Balse hadda iyadana waxaa soo baxday wadiiqo kale oo ah habka muhandisnimada oo u baahan in la isla eego, sida Suez Canalka Masar oo dhulka inta la qodo kanaal laga sameeyo in badda lafteeda la keeno gudaha Itoobiya halka Itoobiya ka aadi lahayd badda cas. Fikirkan waxaa la soo booday banaanka keenay Engineer Mekonnen Getachew oo shaqooyin waaweyn ka soo qabtay shirkadda tareemada Itoobiya iyo Djibouti. Mekonnen oo lagu codsaday barnaamijka baxa TV-ga qaranka ayaa suurtagalnimada wadiiqadan u cuskaday waayo aragnimo caalami ah oo Hindiya iyo Masar ka timid, inkastoo iyagoo ayna ahayn bad la jiidayo. Mekonnen hindisiis ayaa ku qotoma sheekada biyaha looga jiidayo gobolka Punjab ee dalka Hindiya oo la geenayo gobolka Madras oo lamadegaan aan biyo lahayn. Labada gobol ayaa masaafaan isku jira 600 kilomitir, waxayna darseen aqoonyahanadii cilmiga biyaha aqoonta gaarka u lahaa sida mashruucan isku bixin karo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Kadib daraasaadkaas waxaa loo gudbiyay dowladda Hindiya oo gorfayn kadib bixisay kharashka lagu dhisay kanaalkaas 600 kilomitir oo laga sameeyay shub adag iyo darbi si ayna biyuhu dhexda ugu lumin. Dhulka biyahaas loo jiiday ayaa waxaa laga beeray 8 milyan oo hektar oo bariis ah. Injineerka oo soo xiganaya kanaal kale oo lagu magacaabo Indira Gandhi oo isaguna 650 kilomitir ah oo isla Hindiya laga dhisay. Mekonnen ayaa qaba in xalka siyaasadeed ay dowladdu ka shaqeynayso xagga farsamaduna uu isagu fikirkeeda curiyay, maadaama badda cas ay 4 goobood xadka Itoobiya uga jirto 34 kilomitir, 43 kilomitir, 54 kilomitir iyo 63 kilomitir, taasoo suurtagalnimada hindisahan ka dhigaysa mid waaqici ah oo la qaban karo. Waxa uu xusay in meesha ugu dhow masaafahan xadka Itoobiya ay u jirto 34 kilomitir, inkastoo goobtaas carabka una ku dhufanin. Saadarteed waxa uu xusay haddii laga soo jiido badda kanaal gacan ku samaysa oo xadka Itoobiya gudaha loo soo geliyo in gudahana laga samayn karo dekad gacan ku samaysa. Kanaalkaas oo lagu xidhayo badda cas in sidaas Itoobiya ku noqon karto dal leh bad iyo dekad. Maruu ka hadlayay sida kanaalkaas u xamili karo awoodda iyo dhererka maraakiibta waaweyn ayaa waxa uu sheegay in markabka ugu dheer adduunka uu dhan yahay 458.9 mitir, maadaama naqshadda la sameynayo lagu salayn doono markabka ugu weyn. Dhanka ballaca markuu ka hadlayna waxa uu yidhi 124 mitir weeye, marka hoos loo eegana waa 34 ayay maraakiibtu badda hoos u gali karaan. Saadarteed waxaa la qodi karaa kanaal ballaciisu dhan yahay 300 oo mitir si laba markab ay isku dhaafi karaan. Sidoo kalena in la sameeyo dekad halkii mar u adeegi karta 8 markab oo nooc kasta leh. Mekonnen ayaa sheegay inuu daraasadan ku soo darsanin goobta ugu habboon ee laga dhisi karo ama laga jiidi karo badda inay tahay Casab ama Bazela, balse waxa uu xusay inuu u baahan tahay daraasaadyo kale, balse uu filayo inay noqon karaan goobaha joogooda hooseeyo. Waxa uu sheegay in hirgelintani ay u baahan tahay in laga fikiro mowqifyada dalalka iska leh badda, sharciyada caalamiga iyo xeerarka bey'ada iyo dhulka. Madaxweynaha maamulka ku-meel gaarka deegaanka Tigray ayaa waxa uu sheegay in gaajada iyo macluusha ka jirta deegaankaas ay ugu wacan tahay in hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka bini'aadantinimo ku deeqa ayna deegaankaas xilliga loogu talagalay ayna gaarsiinin raashinka iyo gargaarka. Getachew iyo kabinetkiisa oo shalay la yeeshay kulan wafdi ka socday hay'adda USAID ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in waqti xaadirkan abaarta iyo gaajada ka jirta deegaanka Tigray ay ugu wacan yihiin ciidamada ka jooga Eritrea ee deegaanka Axmarada, kuwaas oo suurtagelin waayay in gargaarka bini'aadantinimo la gaarsiiyo dadkii u baahan. Waxa uu sheegay sababaha keenay in la joojiyo gargaarka bini'aadantinimo inay yihiin inaan si dhab ah loo hirgelinin heshiiskii dowladda iyo TPLF ku kala saxiixdeen magaalada Pretoria ee waddanka Koonfur Afrika. Getachew iyo kabinetkiisa ayaa magaalada Maqale ku qaabilay wafdi sare oo ka socda hay'adda gargaarka ee USAID ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. Akhyaare warkeena caawana waa naga intaas.